magacaygu waa maxamed cali ismaan waxaan ahay maamulka shirkadda Sahel Transport and Logistics gaar ahaan gudoomiyaha shirkadda waxaa la aasaasay 2015 bartankeegii bishii 6 ay si rasmi ah shaqada bilowday laakiin hawsheeda iyo bilowga shaqadeedu waxay dib u noqonaysaa ilaa iyo 2014 October markii ugu horeysay fikraddu in dib u dhalnay ahayd fikrad ahaan in la fuliyo fikrad noocan oo kale ah waxay nagu dhalatay 2011 laakiin in implementation-keega la bilaabo 2014 October waxaana si rasmi ah shaqada bilowday June 2015 ujeedada loo aasaasay shirkaddu waxay tahay saddex qodob ku soo koobi lahaa in ay bulshada Somaliland hesho adeeg transport oo ay convenient ku ah ama ay raali ku yihiin oo ay yani ku raaxaysan karaan customer ahaan in la helo platform shaqaalaha daayarta ee jaamacadu soo saarayaan ee waxbartay ay helaan meel ay ku soo bandhigi karaan aqoontooda jaamacadaha lagu baray oo sidoo practical ah u shaqeyn karaan iyo dadka hantida leh ama shaqaysta ee aanu saamaxayn in dhinacna ay ganacsi ka wada galaan dhinacna ay ka shaqaystaan ay invest garaysan karaan marka platform raali gelinaya dadka investorska raali gelinaya shaqaalaha raali gelinaya customerska saddexdaaba danahooda in ay ka dhex arki karaan oo saddexdaba ay improvement ka samayso dakhliga iyo iyo adeegaba caqabaduhu way badnaayeen waxay kulba xaaladda lagu jiray ka xiranta bilowga caqabadaha ka hor imanayay oo dadku hawl shaqo noocan oo kala Soomaali ahaan iyo Afrikaan ahaanba uma diyaarsanin in transport industry-ga company laga sameeyo la nidaamiyo marka marketku ciidan ba ku jirtay dadkii ku jiray in wixii wax ka duwan la keeno in attitude-kii dadka la bedelo transformation noocaas la sameeyo ma fududay marka bilowga caqabadaha iska jiray haddana caqabada shaqaalaha jiray oo dadku inay iyagu laftooda shaqaale ahaan la helo dad ka shaqeyn kara waxan caqabad kale oo labaad bay iyaduna ahayd caqabada saddexaad in customers ay service noocan oo kale heli karaan badan inuu caqabad ahayd marka mar walba xaalad walba lagu jira caqabada gaar ah ka caqabadaha ugu weyn waxa koow ka ahaa in horta dadka la fahansiin karo in shaqadani tahay shaqo la qaban karo oo dad wax bartay oo dhalinyaro ay ka shaqaysan karaan maal gashan karaan qaarkoodna adeeg xafiis lagu soo hagaajin karaan attitude-ka noocaas la bedelo oo meel loo soo shaqo tagaa noqon karto ayaa caqabada ugu weyn ahayd Sahel waxa isleeyahay waa shirkadda kaliya ee transport industry-ga marka laga hadlayo waliba qaybta public transport ee gaadiidka gobolada shirkadda kaliya ee technology friendly ah ama isticmaasha technology-ga si guudna waxay ka mid tahay shirkadaha kooban ee technology ku shaqeeya marka si guud Somaliland lagu hadlayo waxaan soo gelinaa tira ahaan shirkadaha kooban ee ku shaqeeya technology-ga si gaar ah transport industry-ga waliba public transport ama meelaha gobolada waa shirkadda kaliya ee ku shaqeysa waana technology friendly oo adeegyada aan bixino oo dhan iminka technology ku shaqeeya that means qof kastaaba wuxuu ka heli karaa adeegaas sida ugu habboon ee isagu u arko inuu fududahay anagoo ka eegaynaa xagga isticmaalka technology-ga dhinaca wax ka caqabad bay ahayd in adeeg noocan oo kala la digitalize gareeyo ama transformation-ka digitalka la geliyo wax fudud ma aha dhinaca kale haddana korriinka qayb bay ka tahay oo dadkii baa si fudud access u heli karaya marka qayb bay ka noqonaysaa korriinka qayb bay ka noqonaysaa shaqo fududeynta qayb bay ka noqonaysaa qaladaad fara badan oo dhici lahaa in meesha laga saaro sidaba technology-gu wuxuu fududeeyaa technology-gu ganacsiga ma abuuro laakiin technology wuxuu fududeeyaa sida ganacsiga loo qabanayo ama sida shaqada loo qabanayo marka wuxuu noo fududeeyay in shaqadii qaladaadka yaraado wuxuu noo fududeeyay in access inaanu customer relationship iyo wixii isku soo dhawaano wuxuu noo fududeeyay in shaqada qaladaadkii oo meesha hal share u yaraado oo numberka ugu yar percentage ugu yar u gaarsiiyo shirkaddu markii aan bilaabaynay 5 sano ka hor waxa ku bilaabantay hal adeeg maanta ilaa 5-6 adeeg wada bixinaa وفي بط horizontal iyo vertical yani marka loo eegayo xagga maamulka nidaamka way kortay marka loo eegayo xagga service ahaan kana expansion baa soo balaaratay tira ahaan shaqaalaha u balaaratay adeeg ahaan way u balaaratay xafiis ahaan way u balaaratay
customers way koreen korriin guud u jira 5 sanadood ay jirnay shirkadu waxay hiigsanaysaa inay ka mid noqoto shirkadaha isbedel ka dhaliya transport industry aan ku jirno oo isbedelkaas oo waliba aan ku koobnayn Somaliland laakiin aan filayno inaan imika horta reaching aan transform garayno waxaan oran karnaa inta imika wadamada ugu gadaan Djibouti Ethiopia iyo Soomaaliya in adeegga transport industry noocan u shaqeeyo waxaan ka mid nahay shirkadaha kaliya ee ka muuqda marka waxaan isleeyahay waxaan ka kororsanay waa aragtiyo aqoon aan ku gaari karno inaan ku fidino gobolka intiisa kale hiigsiguna waa inaan dhaafno xuduudda Somaliland oo isbedelka aan ka dhalinay Somaliland mid lamid ah wadamada jaarkana ka hirgelin hadii la yiraahdo